ismaaciil noloshu dee halgan iyo dagaal iyo shaqo keliya maaha nolol yaroo iska wanaagsan baa jira jacayl laftigiisii baa jira bal qaybtaa noogu hor nimka halkan baynu ku jirnay soo maayo xiijin bal tii naxariistee kalkacaylkana ka marka su-aasha weydiinaysa maxay tahay maxaad weydiinaysaan waad maqlaysaa ma filay iyagay furtay isagii baa su-aasha ka warwareegaya waayahay waxa weeyaan allahuma salli calaa sayidina maxamed xagee ka bilaaba marka qaybtii kale nolosha buuri qaybtii orodka iyo waxbarashada iyo shaqadii waa tilmaantee bal noloshii kalena ujeesaad leedahay saan u fahmaan malaynayaa waayahay jawaabta xagga gabdhoon baa ka maqlayaa meegaa xiseynaysa arrinta runtii dee noloshu dhinac keliya maahan inta dhinacba way tahay nolosha jacaylkuna waa qayb muhiim oo ka mid ah dee nolosha aynu u ordayno oo aynu u soconno su-aasha way dhamaatan jacaylkii biyaa jiran ya jacaylkii biyaa jirane way horta waan iska dhicinaya axmede taageerayda kunaya horta nolosha waxyaaba ugu macaan bay ka mid tahay inaad wax jeclaato lagu jeclaadana soo sax ma hadda waa nimco weeyaan aadna muhiim bay u tahay laakiin haddaad wax soo qabo wadi kaa baada ka horeyso dhibteeda ma laha marka axmed tada ma baadayso waayahay allahuma salli ala maxamed aduu waktigaasi waad ku beegtaan malaynayaa markii aan shaqada ku jirtay masterta aad dhigato kolley qaybtii noloshii iyo guurkii waxaasaad iyaadan u jeesato ay tahay alxamdulilah waanan u jeestay markii ilaahayna uu dee rafaad badan ka dabadeed iyo maaragtay kacakuf badan dabadeed ugu dambeyntii ilahay uu soo aruuriyey gabadh wanaagsan waan ishelnay sidii baanan alxamdulilah guurkii ku dhacay laakiin in yamaan taabsiiya qoloskaas xagga dambana dhiganayna xagga dambe oo iga qabtay dee saa iga qabtee inta hadhay xagga dambaynu ka dhiganaynaa laakiin kelmadiina baan ku celinayaa nin baa wuxuu yidhi mataqaanaa gabadh buu sidaa u eegay moogta wuxuu ku yidhi niyow maadaa qurux badan oo sidaa darteed baan kuu jeclaaday mise anaa ku jecel oo sidaa darteed baad ku qurux badnaatay siday kula muuqatay saa bismillah horta meel faatay su-aasha waayay ninkaasi wuxuu leeyahay su-aal baan weydiinaya quruxdaa uu gabadha ku jeclaaday soo may dhalan quruxdaasi ma markii sigu arkay qurux samaysantay baa isagoo ku dhalato way lahayd markaad marka iska soo wareeg ma leedahay isaga su-aal kale ayaan ku weydiinaya ismaaciil sidii taariikhdaada markii aan akrinaynay ku xusnayd waxaa jirtay shirkaddii uu ismaaciil sameeyey in sidii cv-gaaga ku qorneed ama warqaddii aan akrinaynay waxaa jirtay shirkaddii aad samaysay inay suuragal noqotay inaad u safarto wadamo badan oo sweden iyo canada iyo ay ka mid yihiin bal safarada iyo maxaa khibrad ku jiray wadamada kala duwan ee aad tegaysa axmedow su-aalaha malaha ma u dhammaanayaane waxaan islaa waa dambayse runtii qayb nolosha ka mid ay ahayd allahuma salli ala maxamed markaa muddo shaqeeyo kambaniyo kala duwan adu laba kambani baan muddo la shaqeeyey iyaan ay fikraddan timid inaan
barnaamij gaara iyo company gaara aan runtii aan aasaaso oo la xiriiray uun sectorkii aan ku shaqaynayay tababarada iyo tababaro bixinta ahayd kole saa wasaaraddaba had uga sharciyeynayso shirkadaada saasoo kale aan uga sharciyey magacaan u baxsaday xafiiskeedii howlaheegii wax badan aan isku dayay intaan ka gaari karayba tababaro bixin bayna ahayd waxaan rabaa inaan hal shay tilmaamo samaynta inaad wax aasaastaa dee kole ma sahlana gaar ahaan bal waxaad yara suuraysataa walaalayaal adoo aroortii 7 subaxnimo guriga ka baxaya 7 caawa soo hooyanaya goor aad fikirto goor wax diyaariso goor shirkadda kale rabtay aad qorsheega dejiso goor tababarada rabtay aad bixiso xataa aad diyaariso waan waay muddadan inta aan safarka ku sii jiray saacadaan sii socdo iyo xogaaga iyo saacaddii xogaaga soo noqonayo iyo buugaaghan sii iibsado aan runtii aan aad u akhrin jiray oo waxaan tababarka ku bixiyo aan rabay inaan ku bixiyo ku saabsanaa xaaladda saas oo leh wali waqti xageed ka keentaa aad wax ku diyaariso sometimes nolosha dhib baa kugu dhacda aad isleedahay waa dhib Soomaaliya laakiin aad dhici karto dhibtii inaad dheef aad ka dhaxasho soo ma dhici karto xaaladda sidaasa oo waqti aan wax ku diyaariyo aan la ahay iyo jilibka aw dhaawac iga gaadha aniga maana ku bad ciyaari ayaan xogaa dhaawac bay gaadho seedii waxba xagaasi waxa timideen aan kici kari waayo waxa timideen muddo 4-5 bilooda in shaqadii aan ka fariisto qalliin lagu sameeyo jilibkaasi marka waa dhib baad leedahay waa fariisatay gurigii Soomaaliya dhinacii kale maxay noqotay fursad iyo waqti fiican oo aan ku diyaarin karo wixii aan waqtiga aan u laa marka buugaagtaan u baahnaa iyo kutubtaan u baahnaa kuwii carabigii islaamigii iyo kuwii kale ingiliishkiiba inta wixii soo wada iibsaday iyaan diyaarsaday tababaradii aan rabay inaan sameeyo markii aan bartii aan alxamdulillah ku diyaarsaday markii aan ka soo kacay ee shaqadii toos ugu soo noqday dhowr bilood dabadeedba waxay ii suurto gashay inaan hawshii kale company samayntii aan galo runtii caqabado badan bay dee bilowgeedana ay iska leedahay ugu dambeyntii laakiin waxay ilaahay suurto geliyey intaa wadanaad sheegtay iyo in kaloo ka badanba inaan tababaro kala duwan oo dad tiro intan iyo in ka badan iyo in ka yarba aan u samayn jiray koorsooyin kala duwan aan ku samayn jiray casharka ugu muhiimsan xagga igu jira inaa uu yahay waxyaabo aad dhib moodayso oo dhinaca kale dheef kuu noqon kara ama aad ka dhex samayn karto ayaa noloshaada jiri kara oo kusoo mari kara waxaad jeceshahay markaad ka shaqaynaysana ama waxaad jeceshahay markaad qabanaysana wuxuu ku geeyaa dhul aad jeceshahay dad aad jeceshahay buu kula kulmiyaa intaba khibrado fara badan waad ka soo heshaa adiga laftaada Axmedow barnaamijkan waxaan barnayaa dad badan oo kala duwan oo islahay waad la kulmaysaan inuu kula kulmiyaa dhici karta saasoo kale marka koorsooyinka iyo meelo kala duwan inay geeyeen baa ay laftada jirtay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku soo xiro qaybtaasi waxa kuu soo baxayaa tallaabada markaad qaadaysana inay wixii wax aad kugu adag ay tahay laakiin markaad ilaahay tala saarato ood shaqadii qabato ood dadaalkii qabato wax la yaab leh ka soo bixi karaan waxaan filayna inay gaari karto adu khibrada ugu muhiimsan runtii waa kuwa waddanka igu soo celiyo khibrada ugu muhiimsan in ayna muhiimaddu ahayn Maraykan baan joogaa iyo Canada joogaa Sweden baan joogaa UK baan joogaa muhiimaddu ahayn muhiimaddu laakiin aad taabato inaad dareemi karto fahmi karto nolosha maxaad adigu hadaf kale ugu gol leedahay haddaad dib ugu noqotaan buuggii 7 caale dadka guulaystay ahaa tii koobaad begin with the end in mind yani waxaad rabtaa inaad qabato waxaad bilowdaa adoo sawirka ugu dambeeyay oo runtii ku muuqdo dadkii kala duwanaa la kulmayay iyo khibradii kala duwanaa ee runtii aad shakhsi ahaan uga faa'iidaysanaysay markaad isweydiisay ugu dambeyn nolosha adiguna maxaa rabaa natiijooyinka kaaga soo baxayay inay kugu kalifayeen go'aano gaara oo muhiim aad qaadato intay ugu muhiimsanaydna runtii waxa weeye nin aan dhul marin dhaayalaba Soomaalida oran jirtay inaan ku qanaco inaan boorka soo noqdo aan qorsheynta noloshada dambana aan xaggan arrinta ku sameeyo waxyaabo muhiimsan ka faa'iido ka mid safarada aad baad mahadsan tahay su'aashan waan u kacay Ismaaciil waxaan ka codsan lahayn inaad sare kacdo Ismaaciil maadaama nin muddo wada shaqeyno waxa jirta dhacdaan marar badan ka maqlo galabta waan ka maqlayay ereygaas shalay aroortii waan ka maqlayay waa arrin aad u cajiiba waxaan u maleynayaa arrintaasi noloshaada iyo inaad guul gaadho inay saameyn qayb ku lahayd
su-aashaas aan ku weydiinaya waxay tahay ismaaciil waxaan arkay inaad tahay dadka aada ugu wanaagsan wakti siinta iyo la joogista hooyada saameyn intee leeg bay ku leedahay noloshaasi inaad maanta halkan gaadho dadka ku faraxsan yihiin amadsanta axmed oo runtii waan naxsanaayo su-aashantaa lagula istaagay runtii kulle alxamdulilah nimcooyinka ilaahay aad bay runtii ay nagu badan yihiin waa qodobadan in lahaa waxyaabaan soo noqodka qayb ka mid ahayd alxamdulilah way way nooshahay wayna wanaagsan tahay waqtiyada ugu badanna jadwalkayga way qayb weyn oo muhiim ee runtii ay kaga jirtaa de topiga ood ka hadlaysa ma lahayna wayla gaaday su-aashaas waxaa muhiim un walaalayaal nimcooyinka inta badan markaad ka maqan tahay iyaad ama markaad weydaba dee intaa waalidku ku ag joogo waxaa dhici karta in aad kuwa baraarugsanayn ahmiyadda noloshaada ku leeyahay in aanu kuwa baraarugsanayn baa ayaa badankeenu laga yaabaa laakiin maalinka had waalidka weydo ayaad albaabka kaa xidhmay weliba hadday hooyo tahay jannada ad runtii aada ogaanaysaa marka qof waloo goobta jooga haddii waalidkaa nool yahay si gaara weliba hooyadaa nooshahay nin weyn oo hooyadii dhimatay oo hin dul qabsaday qabrigii markaasaa lagu war ninkaaga intan leega weyn maxaad la oyeysaa markaasuu yihi ma aha inuu qof dhintay keliye albaab jannadoo iga xidhmay iyaan runtii la ooyayaa buu yihi alxamdulilah ilaahay waxaan ka rajeynaya kulley waalid waxay wad qabataay ma gudayso abaalkiisii inuu weliba saa ilahay naga yeelo kuwo in badan u guda waxaan aaminsanahay barako aanad ogeyn in khidmada aad waalidka u khadmeynaysaa aada helayso barako aadan kuu muuqan laakiin meelo kale yani ma xusataan ducadii waalidka albaabada u furta ma xusataan runtii waxyaabo aadan sawiran karayn oona sharaxi karayn oo xataa kelmada kusoo saari karayn oo si kugu furmaya kugu fududaanaya habinimo aanad ogeyn cibaado kuu fududaanaysa mar kastood farxad geliso automatically accountkaagii wax kugu dhacaaya intaadan gaadhinba dee ilmahaagu in aadna saas kuugu anfacan intaadan gaadhinba adiga iyo noloshaada maanta xasiloonadaada maanta deganaanshaha maanta cibaadadaada barakadaada ama waqtigaa noqoto ama dhinac kastaa noqotee marka runtii kuwo badan oo dee goobta fadhiyo naga wanaagsan way jiraan waalidka u wanaagsan qof walba intaad samayso jaanis waad haysataa maalinta waalidku meesha ka baxun baad ogaan doontaa in ogaanayna dhammaanteen aabbahay aniga anoo yar buu dhintay alla naxariisto waxaan ku garaadaystay oo kusoo weynaaday waa hooyo marka dadka aabihiin hawl joogaan jaanis labaadna iyaguna ay runtii haystaan dadka aan u jooginna sideedaasoo kalena bal ugu yaraan hal beyjo qur-aan miyaanu akrinaa hal beyjo qur-aan xataa miyaanu akrinaa waa qodob runtii aan rabo in aada idinku dhiirigeliyo aadna idinku adkeeyo qabriga isoo jiifa ducada aad dirto iyo qur-aanka aad u dirto sida culimadu isku raacsiin way gaaraysaa marka waxaad sawirataa walaalayaal waxaad sawirataa adigoo camalkaaga istaagay godkaa ku jira eelkaa fadhiya keligaaya xaalad ku sugunta ilaahuna garanayo oo nuur iyo sadaqo iyo qur-aan iyo duco wiilkii ama gabadhii aad dhashaa kuu soo diray bartaa kugu imanayso farxaddeeda iyo sawiro marka intii waalidkood geeriyooden allah u naxariisto laakiin qur-aanka iyo ducada iyo sadaqadaasi waa waxaan idinku runtii dardaari lahaa inta uu nool yahayna waalidkood nool yihiin hooyaya aabbaba janiska ka faa'iidaysigiisa waa idinku adkeyn lahaa aad iyo aad iska fariisan karta ismaaciil allaha hooyadii u daayo in badan baan arkay isagoo waqti badan siinaya anu janis uma helin inaan hooyadii kusoo akoro anoo yar bay hooyaday dhimatay marka waxaan idinka codsan lahaa inaad faatixada u akridaan alxamdulilah rabbil aalamiin aad baad u mahadsantihiin intayna la midkaa hooyadood dhimatay allaha u naxariisto waxaanad ku xidhiirin kartaa hooyo dadkay saaxiibada ahaayeen ama walaalo ahaayeen in qof wallaaba uu ka warhayo anu waxaan isleeyahay mucayday oo kale aan aada ugu wanaagsanaa maalintay iigu farxad badneedna waxay danoo xaasilayda tukaan maalin ka iibsanaya xanjo ay islaantii iga iibinaysay intay saay soo egtay igu tiri hooyo madeeqe sheekh maxamed baa ku dhashay markaasaan yaabaan ku yidhi haa maxaad laakiin ku garatay waxay igu tiri afkeedii baad leedahay
waxaan xasuustaa dukaanka markasta anuu wax ka iibsanaya xataa imikada markaan sii maro islaantii sidaan isku baranay ku xidhiidhiyaa ismaaciil aan su-aal ku weydiiyo laakiin alxamdulilah aabaa nool aabaa waqti fiican wada qaadanaa idinkana waa diin ducaynaya ciddii saas oo kale marka su-aashaan ku weydiinayaa waxay tahay bal sidoo kale ganacsi baa jira qoyskiina laftigiisu waa ganacsi buu ku jiraa bal isaga iyo khibrad wixii laga baran karo سؤال محمد أحمد السعودان بسم الله وايهي حفلة هنا قيمة قد ما ينسعونه خيارتنا سألتنا السنة ديال هذا جناح سيجا محل يقوم يديش تلو maxaa khibrad intaad ku dhex jirtay maadaama qoyska laftigiisu ganacsi akhyaar badan kule dad badan way ku hamiyaan ganacsi inay furaan ama inay ganacsi yeeshaan kuwa badan way leeyihiin intaad khibrad kaaga dhaweyd ku ag jirtay maxaad khibradda la wadaagi kartaa bay su-aasha la weydiiyay tahay axmed waxyaabahan arko waxaa ka mid ah dadka dhan horta ganacsata ma wada noqon karto qof kastayba ganacsade ma wada noqon karo laga yaabaa in badan baad maqshabaad noqon karta waa noqon kartaa soo ma xaqiiqa markaad u degto qof waliba way adkaanaysaa sababtaana idin sheegaya qof walba ma jecla inuu mas-uuliyad boqolkiiba boqol la qaado dad badan waxay jecel yihiin shaqada saacadaynta ka soo shaqeeyaan markay ka soo baxaan ay iska nafisaan arrintaa ma jirtaa horta la soco marka ganacsigii waxaad ka soo rawaxaysa oo kaa haraya ma aha sariirtaad la tegaysaa waad la seexanaysaa waad la soo kacaysaa haddaanan taa ku talagelayn ganacsi ma wadi karaysa marka way culus tahay mas-uuliyadda uu leeyahay inaad ganacsi furto inaad rangarayso ciddii soo tijaabisana runtii way garan kartaa ciddii ugu bacdhigaysaay fursadihiisa kale iyo waxyaabuhu keenaya ee badani way jirtaa dadka qaar diyaar waxaa jira inay xidhiidhada u baahan yahay ay sameeyaan dhabradeeg u baahan yahay ay sameeyaan maamulku u baahan yahay ay sameeyaan qaarkood keligood kuma fiicina cid kaloo taa ku fiican bay iyo la sameeyaan shuraako la sameeyaan wada shaqayn bay marka saa ay ku sameeyaan wixii ka dhibnaa iyo qof kale ay iskula taageersadaan laakiin haddaad ku fikirayso keliga inaad furto waa inaad ku tala gashaa caqabadaha uu leeyahay inaad runtii aad ka shaqayn karto dhalinyartana waxaan aad ugu dhiirigelin lahaa in badan baa xafiiska nagu soo martay axmed wadiga arkay waxoogaa yaroo ama isagu ururiyey ama ehelkuba ay ku taageereen iyaa jiri karto dhaqaalaha markaaba wuxuu rabaa inuu meel ku furo war inaad adigu meheradaad leedahay furto qasab maaha inaad ganacsiga ka bilowdo waxbarashada su-aal la weydiiye qof jaamacad ka bilaabaa miyuu jira waxbarashada ma jiro hadda la socda waxaa jirtay family aanu qaraabanahay oo gabadh dabadda joogta maalin tiri walaalkii baan u furayaa dukaan markaasaa kurini ukaani ha u furin ukaani warday u shaqaysanaya maxaad uga joogtaa bay tiri markaasaa isaga kamor joogeen dhaqaalahaagaas iyaan baan rabaa horta inaan hubsano meesha ku dambeynayo haye maxaan sameeyaa bay tiri bal 3 bilood tijaabi baa ku wuri ninkaas inuu meherad u shaqo tago oo ka soo shaqeeyo oo full time ka shaqeeyo 3 bilood tijaabi hadduu 3 bilood ka shaqeeyo ofur natiijadii maxay soo baxday labadooda hore markuu tegay inuu iska seexday maalintii dambe iyadana maanta lacagta ku wareejiso intaasoo kunbay iyo runtii rabtay marka intaadan ganacsi furin qof walba horta barashada ganacsi loo wado waxaad jaamacadda ku barateena ganacsi toos oo practicala waa theory iyo practical ka dhanbaa runtii ku dhiman meherad ka shaqee kow kala soo bilow lawad markaad istiraahdo kulka luqluqayga u dhan waad baratay iyaad gaari doontaa runtii inaad furto dhaqaalaha yar hayso ama familku leeyahay ama adigo aad leedahay durbadiiba albaabkaa ku furin oo ku degdegin baan odhan lahaa ciddii rabta inay ka shaqayso ciddii kale xiiseynaysa inay shaqooyinka kala qabsatana dee runtii way u furan tahay ganacsi waa khibrad iyo xiriir marketing iyo cilaaqaadkii waxaad isku xidhaysaa meeshaad ka soo iibsanaysay sablaarka ku ahayd iyo suuqii customerka ciddii ku noqonaysay iyo xisaabaadkeedii hawoogii oo dhan marka haddaan diyaargalowgeega ahayn yani waa kula fikirta midi waxay tahay bal sidee ku bilaabantay ama loo aasaasay xaruntan Boroma Job Center taada joogaa madka bismillah runtii aad baan warda Job Center soo qaaday axmedow mar labaad sacad ugu tumaniyo axmed ku raaliya maasanidin runtii aad baan qadarin badan ugu hayaa
muddaan wada shaqaynaynay qofka markaad wada shaqaynaysaan dadka qaarkood shaqadii aad kala qaybsateen ama ku qornayd ayay rabaan inaad daba socotood hubisood markaad kolba la hadasho qof dhaqaaqa qofna waxa weeyaan markaad saa u kala qaadataan wixii oo dhammaaday waad arkaysaa axmed waa noocaas saa markaad u qaadataan wixiisi maasha allah qof isdir leh aad iyo aad aan ugu hambaliyeynayo qayb weynna shaqadaasi adoon isagu aad noola wadina runtii isaga tiimkii kale akhyaarta wada shaqaynayba job centerka waxaan xusuustaa 2016 aduu 15 maadaama kusoo noqday saan bilowga kusoo sheegnay ganacsigii wixii markaan galay hadda su-aal baan shaksiyan isweydiiyey intaan job centerka iman bahayd markaas maadaamaan intaa qurbahan joogay xagga bulshada iyo tababaradii waxaasna aad ugu dhex jiray sanad markaan joogo qiyaastii sanadku dhawaad ag joolay waxaan yaro dareemay cidla in fact horteedna sanad kasta waan soo booqan jiray kolley akhyaartii magaalada joogtay way xusuustaan dhalinyartu intay sabaabulaan bay tababara noo samey odhan jireen bilowga diirul khayr iyo grubyo kale iyo wax badan oo saasa ayaa jiray ahayd marka tababaro dhowr oo samayn jiray baa jiray 6 bilood sanadkaa hore joogay waxaa jirtay markaanu kulmayno dee waa dhalinyara shaqaynayn kuwa badani sometimes inaan macluulkii anigu ka bixiyo kharashaadkii raadda baro si tababarkii u qabsoo markan inaan saaxiib nahay oon ardaydii aan iskuuladka ahayna ayaa maalin bartan place anagoo fadhina aan ila kaftamo aniga ismaaciilo tababarkaan u qabanaya kharashina anaa jeebka ka bixinaya muddo dheer kusii wadi kari maysa soo maad gare marka mashaariic baa jirta waxyaabahan oo kale support garaysa mar haddaad qabanayso maad ku eegto war kuwaas niyo weligeyba kama shaqayn baan ku iri private company baan haysan jiray dabadda markaan joogana xaggana private business mayne resource baa jira saasa waxoogaa kadib mashruucan oo soo socda warkiisaan aan maqalnay isla 2016 inaan documentka isku toosino oo yimid lahayn qadaray sidii markaa horta mashruuc oo ku yimiday isla tababaradii iyo hawlihiisiina sidii uu ku bilaabay markay niyadaada koobaad wanaagsan tahay ee adigu jeebkaaga wax ka bixinayso ee waqti rabtay inaad dhalinyartii dadkii aad runtii aad wax geliso ilaahay meelaan ogeyn buu ka keenayaa qoladan oo hay-adda mashruuca bixinayso wadata oo socota ayaa timiday 6 bilood 8 bilood hortood annaguna warhayna intuu kharashaadkaasaa u bixinaa dadka dhalinyartaan u sameynaynay runtii tababaradii iyo mashaariic iyo wixii yaraan qaban karaynay marka ilaahay siduu isku toosiyey sidii bay ku bilaabantay gabagabadana waad ka warhaysaan baan malaynaayoo hadda cid ay ku cusubtahay ma jirto ilaahay ninkiina meel ka fiican way sii gaari doontaa way idin shaqayn doontaa su-aashii ugu dambeysay markaan kaftamayno ismaaciil waxaan idhahnaa Boorama Job Center waa awoodda labaad waayo dadka ugu badan magaalada way soo maraan ama tababar bay ka qaataan marka waxaan rajaynaynaa in dhammaanteen miisaanka xasanaadka inoogu daro waayo qofku hadduu dadka anfaco waa wax wanaagsan dardaaran waxa laga yaabaa dhalinyaro waxaa joogta hal abuur ganacsi ku jiro dhalinyaro shaqo doonaya inay samaystaan ama shaqo tagaan ugu dambeyn dardaaran maxaad siinaysaa dardaaran waa kalmad culus marka dardaaran ilaa runtii dhowr qodob baa runtii aan taaban lahaa waxbarasha horta laga hadlay waxaan odhan lahaa dhalinyarta noloshu buug ma ahan buug ma ahan buugna kuma dhex jirto hadalkayga fiirsadaada noloshu buug ma aha noloshu buuggana kuma dhex jirto buuggan wuu ku caawinayaa waa stepping stone waa daad meeshaa socdo dhagax intaad ku dul sugta aad kaga tallaabayso kale meel buu ku gaadhsiinaya waxbuu ku caawinaya waxbuu ku taraya laakiin noloshii kale inaad waajahdo iyaad runtii aad u baahanaysaa marka waqtigaagu jaamacad baa dhigtaa wax kale ma qabanayo sidii la rabay umaad faa'iideyn iskuul baa dhigtaa wax kale ma qabanayo sidii la rabay ugumaadan faa'iideyn yaanay dhicin inay jaamacaddii dhammaato adoon wax khibrad ahayn yaanay dhicin meel kale madaxa laga khibrad raadi khibraddii nolosha dhinac wad adiga oo wax dhiganaya taas waa mid intaad buugga ku jirtana buugga laftiisa sideedii uga soo baxay yani dhibaatooyinka aadka u jira isagoo qofka english iskuulkii ku bartay oo jaamacaddiina english ku bartay iyaad markuu ka soo baxo jaamacaddii dadka dhan ma odhanayo dad badanoo toba waa jiraan dad badanoo englishkooda haddana iska barakaysan yahayna waa jiraan marka buugga laftiisii xaqiisiisi iyo meeshiisii kaga soo saaro yani skilliska aad u baahanteed noloshaada ku dhisayso ee luqaduhu kow ka yihiin aada iskaga dhis wixii kalena dhinac wad ganacsi ha noqoto
meherad miis meel dhigataa noqoto meherad kalood intay shabaab ugu shaqaysaa noqoto ha ku koobnaan hal shay that's number one waxaan odhan lahaa oo ku dari lahaa qodob kale guul baa rabnaa inaan ku gaadho somaa waxaan ka sheekeynayno o dhan horta soo saas maaha waxaa la yidhaha haddaad maalintaada dar yeesho mustaqbalkaaguna u daryeelo haddaad maalintaada dar yeesho mustaqbalkuna u daryeelo marka su-aasha rabaa inaad weydiiyaa walaalayaal waxaa weeyaan innagu guusha aynu rabno yani waxay haddaan dib u noqon tababaro fara badan oo intaan qurbaha joogay aan qaatay rag badan oo kutubtoodu inaad akhrisateen laga yaabo aan la kulmay tababaro meelaha qaarkood kumanaan qof ay isugu yimaadeen wixii la xiriira cilmigan ama aqoontan la xiriira inuu qofku guul gaaro ama wixii la xiriira inuu qofku naftiisa horumar siiyo markaad isku soo aruurayso aayad ama xadiis bay kugu soo celinaysaa hadda hadalkay oo fiirsada seen horumar u gaadhaa seen nafteeda wax uga bedelaa seen hadaf iyo maxay yeeshaa ninka gaalka ah kelmadaha uu akhrinayaay maadaama dee horteed qur-aan iyo diin baan sii bartay markaan dhagaysteed dhuuxdo waxay dib kugu soo celinaysaa ama aayad ama xadiis already aad sii haysatay laakiin sideedii aana ku taabanin marka guushaan ka fikiraynaa walaalayaal salaada subax haddii aanan tukanayn oonan masjidkii kusoo tukanayn ama waqtigeediiba aanan tukanayn yani waad garanaysaa maxay xadiiskii qofka salaada subax soo tukaday jamaca ku tukadaay wa fii dimmati illah soo maahayn ilaahay buu magan u yahay qof ilaahay magan waa cid baa ka qaadi karta haddaba guushii maalintaan ka hadlaynaya maalinta markaad u fiirsataan raggaan la hadlaya hadda salaada subax masaajidada talow inta safay ku tukataa intiina garanaysaa waad garanaysaa inta kalena waa boomahaysa soo maada hadda la socda nin baa gabadh doonay intaana ku dhex daraxda gabadh buu doonay markii gurigii la isugu yimiday waalidkii iyo labadii reer ay sarkayeen gabadha aabaheed baa ku yidhi war adeer ma ninkana gabadheeda rabo yidhi haa salaada subax imisadaa la tukadaa buu ku yidhi way ka qasantay markaasuu yidhi ninaan waajibkii ilaahay daryeelin xuquuqda gabadheeda daryeel maa wanaas ka soco buu ku yidhi adeega anoona salaadii subax jamac ku tukanayn guushaan raadinaya maxay tahay hadda la socda walmeeda waa shaydaan baad u xidhan tahay waad garanaysaa xadiiskii inta la kabo shaydaanka ku xidhan waad garanaysaa markaadan tukan salaadii subax markaad tukatana ilaahay ku abuurtay inuuna leeyahay anaad maganteedii tahay waad garanaysaa marka guushaan ku raadinayna adduun iyo ta aakhiraba maalintaadaas horta dar yeesho maalintuna salaadii subax bay bilaabaysaa aad waqtigay ku tukatay horta kow ay ku tahay laba waxaan odhan lahaa yani waad garanaysaan qad aflaxa man tazakkaa waad garanaysaan intaasoo xadiis iyo intaasoo aad waad garanaysaan waxaan ku soo khulaasaynaya walaalayaal hal qodobna waxaan rabaa inaan gabdhaha idhaahdo haddaad ii ogolaataan ya hal qodobna inaan wiilasha idhahdaan rabaa gabdhaha waxaan odhan lahaa mayhan anta wiilasha ku bilaaba wiilasha runtii waxaan odhan lahaa hadafku mid uun yani shaqada experienceka mid iyo mid waad wadi kartaa laakiin hadafka weyni inuu mid ahaadaa muhiima waxaad ku jirtaa jaamacad guur diyaar miyaad u tahay naftaada roosha dhinacna shukaansi baan isdhinac wadaya oo dareerinaya dhinacna waxbaan baranayaa dhexdhexaad baad aad runtii kusoo dhacaysaa marka hadafka guud intood qabsato intaad hadafka xaqiijinayso warwareega yaree kale yaanu wakti badan lumini gabdhana waxaan odhan lahaa nin waktigiisii lumiyey oo habeen iyo maalinba bahalkaasoo ku jeedo maxaa la odhan jiray tiisa badaryeer ahe la soco hadda ore arego gabdho naga xiriirsan marka dhibaatooyinka soo kordhayna iyo culayska iyo communicationka iyo waxaasoo dhan dhib badan runtii way leedahay waxaan kusoo aruurin lahaa tallaabada aan qaadayo inaan mid ilaahay raali ka yahay miyay tahay haddaan gabadhahay sawirkaa qof u dirayaa ma mida beri ka qoomamaynaya mise waa mid asturnaanta ilaahay siiyey aan xadkeedii aan ku ekahay soomaalida maxay tiraa hadal intuu afkaaga ku jiro soo mahayn sawirna intaadu gacantaada ku jireen san odhan iyo kuwa asturan yahay runtii dhibaatooyin badan oo qabsado waynu garanaynaa it's okay waxaan kusoo gabagabeynayaa kalsoonida shayga la idhaahay haddaan anu kalsooni isku qabo
inaan ka sheekeeyo miyaan u baahnay kalsoonida dad badan waxaad arkaysaa anu kalsooni baan isku qabaa oo stateska waa kalsooni ku qoranaya oo meel kasta kalsooni ka buuxiye hadda la socda waxaa lamid a qolihii jacaylka ka hadlay ee meel kasta joogaan baan isjecelnahay calaamadaheega iyo sawiradeeda ku dhejsanayay psychologically marka hadda la baaro researchada lagu sameeyey qofku waxa ka maqan buu sheegaa waxa una haysan buu iyuu durmaankiisa awruntii tumaayo sheegaa qofka ale kalsooni baa isku qabaa markaad hoos kusii daadegto cabsigu iyuu qabaa suma garan qofka kule waan isjecelnahay bannaanka soo dhigay jacaylkiisa armay wax kale jiraan oo lagu qarinayaa marka waxaan oran lahaa xaqiiqada nolosha aynu ka raacno it's okay gabadha walaasha nahay adoon is caddayn inaad qurux badnaato waa caadi hadda la socda adoon midabkaaga ilaahay ku abuuray dhalaadaya wanaagsana aanan bedelin inaad jacayl heshaay waa caadi hadda la socda so sax ma aragta it's okay sidaa uu ilaahay kugu abuuraad ku qurux badantay fi axsani taqwiim iyaad fi axsani suura ayaad runtii tahay wiilka odhanaya waan iska kaayagaya sawirkaa keenay kaa kale keen saaxiibow meeshaada ku joog iyaa taalla mar raba in hadalka sii wada uun aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu idinkaan idin siin doonaa ismaaciil aadan miicaad aad iyo aad buu mahadsan yahay fursadda iyo jaaniskaa una siiyey iyo khibraddaa uu nala wadaagay ismaaciil waa shaksi wanaagsan inta aan wada shaqaynaynay ani laftigayga saameyn badan buu igu yeeshay waxaa ka mid a qiyam badan inaan ka bartay ay runtu ka mid tahay oo ay ka mid tahay inaad si saraaxana dadka wax ugu sheegto anu waxaa ma karayo shaqada noocaasa ma jecli sidaa ma yeeli karo tababaraan isaga ka qaatay weeye iminka dadka markaan wada dhaqmayno waxaan ku dhaha nin arrintaa ma yeeli karo ama sidaa ma samayn karo ama waxaa ma ballan qaadi karo waxa kaloo barnaamijkii khibrad wadaag hadduu guul gaadho qofkii ugu horreeyeen uga sheekeyn jiray isagu ahaa iyadoo shaqana laga sugayo report samaynaynu iska kay soo dhacay maadaamaan xiiseynay waan iska weydiinayay dadka qaar waxaa laga yaaba inaan isku dhici lahayn oo shaqadaba lagu kala tegi lahaa talo badan buu ku darsaday marar badan buu dhahaa axmedow sidan ka daa sidan ad u wadaafa shaqaynaysa markaa aniguna aan usoo joogsadaa noloshayda kalena ismaaciil saameyn badan oo aad u weyn ayuu ku yeeshay beriba waxaan xasuustaa waxaan ku yidhi anigo ismaaciil markii ugu horreysay malaha sanad 2 sana shaqaynay anigo shaarka uu iska yareeriyay in lay kordhiyeen rabaabaa ku yidhi markaa wuxuu igu yidhi masaasa ahaa shaarka waynu kordhin karnaa dhib male laakiin ka waran haddaynu taa wax ka wanaagsan samayno oo maxaynu yeeli karnaa waxaad adu leedahay haddaynu samayno ka waran 500 700 kun waa la gaarsiin karaa lacagta laakiin waxaad adu leedahay haddaynu samayno oo sidaa adu rabto wax uga soo baxaan marka anigu berigii hore businesska ma jeclayn waxaan u haysan jiray wax meel la fadhiyo xisaab la wadayo dhib badnayd maalinkaa kadib way igu soo dhacday waxaan xasuustaa birinta reer baan iibsaday waxbaan biritan garayn jiray jaamacadda masterta markaan diyaarinayay mararbaa waxaan ku bixin jiray masterta intoon lacagta kale iska daayo birinta kaa yareen wado ayaa lacagta 500 iyo waxaa bixin jiray marka waxaan ogaaday qofku wax wuu ku siin karaa laakiin inuu talo kuu sheegaa oo weliba ku anfacda wax weyn ismaaciil abaal weyn baan u hayaa waa mahadsan yahay